haddii maanta laygu odhan lahaa qof dhalinyaro ah oo doonaya inuu horumar sameeyo ummadda iyo dadkuna u soo istaagaan maxaa tala siin lahayd 4 talo ayaan siin lahaa ta koowaad waxaan odhan lahaa xirfad iyo aqoon baro xirfadaad is leedahay macnay samaynaysaa dadku ay u baahan yihiin baro baahida dadka daraasay iyo baradeedna tay u baahan yihiin 2 sida loo hadlo baro public speakingka awood u sii dadka inaad u sharaxi karto 5 daqiiqo aad hadlaysa inay ku dhageysan karaan baro taas waa xirfadda labaad waa shayga labaad arrinka saddexaad waxa weeye shakhsiyadaada ku sugnow ha isbedbedelin ha noqonin shay marba midab leh oo marba halka uu jirjiroora halka uu taagan yahay midabkeeda yeesha shakhsiyadaada dabcigaaga nooca aad tahay sidaad u dhaqanto sidaadaa ahaw arrinka afraad waxa weeye run sheegnimada ku dadaal qof runta sheega noqo beenta iska ilaali 4 arrimood haddaad la timaado waxaan aaminsanahay in ummadda oo dhan kuu soo istaagayso lagaa dambaynayo aad baan idin salaamay asxaabi haddii muuqaalku ku anfacay bal nin dhalinyaro ayada 4 talo la wadaagi lahayd xagga hoose inoogu meeshan gareys